وزيرك وزارة مالية Somaliland يا قاسمها جودة وزارة قرشنت يحريرك عالمي Somaliland يا مانتا waxay kulan la qaateen gudida gacanta ku haysa dhismaha jaamacadda cusub ee yeelan doonto degmada Sheekh sidoo kale waxay la kulmeen isla markaana warbixin ay ka siiyeen jaamacadda iyo halka ay haatan marayso odayaal iyo waxgaradka kala duwan ee ka soo jeeda amaba ku dhaqan degmada Sheekh ugu horreyn waxa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay maayirka degmada Sheekh Ibrahim Abdullaahi Cabsiye iyo xildhibaan Khadiijo Xuseen Xasan waxaana hadalka iyagu u daba maray isla markaana soo dhaweeyay jaamacadda degmada Sheekh ay yeelan doonto iyo dhismaha cusub ee gacanta haatan lagu hayo odayaal iyo waxgarad kala duwan oo iyagu ku dhaqan degmadaasi bal waxa aynu wadno iyo qaybta reershii ka qaadan doonaan qaybta hooyooyinku qaadan doonaan qaybta dhalinyaradu qaadan doonto qaybta aqoonyahanku qaadan doono qaybta allahumma salli calaa maxamed ganacsatada reershii qaadan doonto intaba waa ka tashan doontaan idinkoo xor u aba is abaabuli doontaan sidaa lacagta u ururinaysaan iyo sidaa wax u bixinaysaan idinkaa idiin taallaayo haddii aynaan wax bixinna dee waxay noqonaysaa meel aynaan lahayn inay hawlqabyo u tahay oo ka fadhiya muquusba taariikhda sheekh meel fog bay tagtay maantana halkay joogto qof la muran kagama jiro carruurteennana halkan u dabandooshay iyo tijaartii halkay carruurteedii la qabatay waa ogtihiin qof kasta oo reer sheekha mid yar iyo mid weyn kuuliga wax dhisa waxaa laga rabaa inuu wax dhigo oo wax ku darsado gudida iyo dadweynaha reer sheekh dhammaantiin soo qaybgalkan aad ka soo qayb gasheen shirkan iyo gudida intaa markaan soo socotay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa hawshan aad ku jirtaanna aad iyo aad